5 sano ka hor waqtigan oo kale Chelsea ayaa ka adkaatay Liverpool iyadoona dhaafsiisay fursad ay ku qaadi kartay Premier League kadib markii uu Steven Gerrard ka hor kufay Demba Ba oo shabaqa dhex dhigay gool aad u qurux badan. Tababare Jurgen Klopp ayaa iminka ku faanaya in ugu yaraan xalay ka hartay sheekada kufitaanka kadib markii ay 2 gool iyo waxba ay uga adkaadeen Blueska isla markaana ay 2 dhibcood ku qabteen hogaanka. inkastoo hogaanka laga soo dejin doono haddii Manchester City soo adkaato ciyaarta baaqiga u ah. macalinka reer Germany ayaa iminka sare u qaaday rajada ah in Liverpool ay markii ugu horeysay ku guuleysan karto horyaalka Ingiriiska tan iyo 1990. ugu dambeyn waan soo xirnay sheekada kufitaanka. Klopp ayaa sidaa yiri kadib ciyaartii xalay. Andrew Robertson waa uu kufay qaybtii labaad ee ciyaarta waxna ma dhicin sidaa darteed way dhamaatay sheekadii kufitaanka. jawigu waxa uu ahaa mid aan inaba caadi ahayn waana dareemi kartaa 4 kulan ee noo harsan waa inaan diiradda saaranaa sidaan u guuleysan lahayn si xilli ciyaareedkan aan u ruxno horyaalka Ingiriiska ayuu yiri Klopp. si walba tahaba Liverpool ayaa Anfield xalay ku qaabishay naadiga Chelsea waxaana ay kaga badisay 2 gool oo ay kala dhaliyeen wiilasha Afrika ka soo jeeda isla markaana matala Rediska ee Sadio Mane iyo sidoo kale Mohamed Salah iyadoo labadaas gool ay yimaadeen daqiiqado isku xiga qaybtii labaad ee ciyaarta.